waxaa marka ragga qaadka beeraha soo raraya baabuur barta uu ku furayo ka hela balaayin annaguna bakshiish iyo balka mooska noo reeb waagi hore qaadka gaariga soo qaaday anaga lahayn hooyada gadina anagaan ahayn maxaa la jiray ninka cunaayan anaga ahayn hadda beerta nin madow iska leh oo meeru ah gaariga soo qaadaya nin meeru iska leh darawalka wadana waa nin meeru ah dukaanka lagu gadaayana nin meeru iska leh wiilka u xirxirayna 500 shilin buu siyaa asagoo meeru asagoo xirxiraya hooyadii Soomaaliyada qaadka wiilasha ku kursanaysa ilmaha kursanaysa wuu soo garab dhigay ayada asagiiba yay dirsatay wuu imaaday lacag ka yar buu gadaaya qaadka ay keentu keenaya maxaa naga soo galaya guriga kirada ninka bas yaa naga soo galaya subax walba gaariga pick-up-ka ah ee qaadka wada 1 milyan iyo 700 1 milyan iyo 800 buu la laabanaya oo cash ah 1 milyan iyo 700 1 milyan waxaa gaaris imaata loori baa hadda lagu soo raraa pick-up tu nadiqsin weys hadda 7 loori baa imaata waan min 3 milyan iyo bar min 4 milyan bay gaaraan cash meel tog ah oo daawo ay dawladda county marin weysay qaadka waa la mariyaa laakiin bigi daawo lama saari karo neefka ariga ka dhaqaaqayo yuu ninka lugta soo qabanaya gadaa qaad buu ku dirsanaya waxaa kaloo reer gaaris u sheegaya oo dadku u sheegaya soodhada baadiyaha la geemaha soo dhacaadi ah naagaha iyo dadka soodhooyinka dadka reer miyiga u geenayo waxaa lagu daraa kaniin intii la qooyo lagu soo daraya ama khamra lagu daraya aad bay u marqaamaan wiilash adhigtayna ku noqdeen qaadkii iska daaeegadan carabkay rugayan waxaan caddeynayaa oon dadka reer gaaris u sheegaya maanta in dadka xoolaha raacaya ay yihiin turkaana iyo booran iyo mukaamba laga soo kireysanayo waddan kale wiilka odayga u dhalay arigiisa inuu raacaynin oo uu qaylayo tuulada u joogo soomana baabi'in bulshada soomay baabi'in tagtay marka waxaan ire ardayda waan u imaa marka balka mooska nooreeb ardaydii baloodo burburiga cunayaan caleen loo babiyey baa bacaha loogu shubaya wakwa beerka u wada yaal cunuga caawa dhan buqiilaa muxuu jaamacad dhigan beer buu yaallaa adaana disha dhibka ugu badan ee dhalinyarada laaynayn waa hooyooyinka nin 20 jir waxay ku leedahay inuu iga tahriiban ka yaabi ma shaqayn karo hebel mu shaqo qoro nin siyaasi bay ku eedeysaa magaaladiisana rag baa intay meel kale ka soo kaceen bay ka ganacsanayaan waxaan iri marka barka kale bal eego suuqa buuxa aragtay badaan yaa taqaana waa tii hadda aan ka hadlay habeenkii dadka socdo dadka suuqa ka ganacsanaya hataa hadday Soomaali yihiin rag khayr Allah siiyay haddayba ayaga ahaan lahayn aminka nalaga qaadan lahaa magaalada yaa ka ganacsanaya rag haddii magaaladan ayaga ay ahayn rag kalaaba qaadan lahaa suuqa buuxa ayaga badaan yaa taqaana madowgii baa ama xamaali qudaarta ayagaa keeni wax walba ayagaa keeni wax walbana ayagaa xamaaliga waa ayaga guryihi wax walba ayaga marka waxaa yidhi barka kale bal eego suuqa buuxa aragtay bidhaan yaa taqaana ahlulbeytka maxaa yeelay yaa bic mushtaraya barka kale bal eego inta boodha fuushiya inta baati saaran hadday kuu boobaan baatiga waa jingad inta boodha fuushiya inta baati saaran hadday kuu boobaan horta beledku waa kee waa kee barka kale bal eego bidhaan waa bidha waaga subaxii askariga ku baadee boqolka kaa gura beeriyahan dhammaanin gumaystaha i beeciya goormaan u baxaya adi magaalo dhan oo maaragtay gaari kasta oo magaalada ka soo baxa uu nin ka qaata 100 shilin oo khasab kugu ah hataa insurance hadaa shilin kusoo dhijisa 100 shilin waad bixin 100 shilin waad bixin waa lagu istaajin lambaraa u qoran buug baa u qoran adigu wiigga horaa lagaa qaaday markay xoogaa joogaan bil joogaana lacag lagu soo rogaa jirtaa waa laga qaaday sharciga si walba u waafajis wax walba samee gaari aad cusbi rag magaalada laaba ka dalaaline dad waddan kale ma joogo wiil madow iyo wiil Soomaaliyeed maanta isdagaalaan xafiiska markii la tago ninka jaajkaana waa ninkan ku qabiil ah ninka booliska meesha jooga waa ninkan ku qabiil ah adi hooyadii askariga ay joogto ta Keenyada hoose askari ma dharbaaxi karo gaari pick-up-na dawada kama saari karo mana wareejin karo adi gabar yar adi kula dhalto naaska caaradii yaa nin madow garabka ku haysaa oo intuu ka soo saartay mudhikari duurkeeda gaari uu magaalada dhex wareejin konta ku soo dir buu ku leeyahay maxaa sawirkan waxaan ku arkay Soomaaliya yaa leh anaa degaa Jubbaland anaa degaa Ethiopia sawirka hadii lagu arkay maxaa madad baan leeyahay askartaada joogtay military Kenya intuu jooga kismaayu jooga
maxaa ani sawirka adi ciidankaadi baaba joogaaye ani sawir Soomaaliya dhexdeeda oo telefoonkeeda warka maxaa konton kun iga qaada أنا حارك مع ماله هراء كسب ودتي أفرتهم ولا قاتي معاه هجيك سويلي أفصح من لغتي داني أفصح المقرنيسو ها أفرتن كون البحر ها أنا كان لعقته أيضا بحنا وقميست معاه كسب تأيد أسكال لكن لغتكم هلس marka waxaan yiri baaqaygu wuxuu yahay maansada horta baatu batri bay jirtay laakiin wali ma duubin baaqaygu wuxuu yahay ballan qura ma dhigana cadli ma u bareerna cadli ma iska baaqaygu wuxuu yahay ballan qura ma dhigana cadli ma iska baarna xaq ma u bareerna wabiga butaacee baalaha ku jiifsaday annagoona barakicin beeraha ma qodana maatida bulaantee oonka uu ku baahee booyadaha cabaayee barkadaha dul taagani biyo ma oga doono ilaahay baan kugu dhartee hilooyin baa jirta ayr biyaha aan ka soo dhaansan jirno oo aan ka cabbi jirnay xor baan ahayn hadda Nairobi baa maal hore nin ii warramay magaaladii Islii ee biyi cabaayeen waa Soomaali meel kasta joogta saan u bahdilantay biyi Islii laga cabaayay niman baa barakada u samaysteen wadanka u dhasheen kale biyi buu xirtabo marka booyad buu kaaga gadgaday haddii gurigaada biyaha imaan lahaa dowladda ku keeni lahayd waa Nairobi barkada yuu ka gad booyadii buu ka gaday si marka looga oomo Islii oo biyo looga baahdo biyi uu xirabo meelka aad oga reena male ilaa iyo waxay is haysataa meel fog hatta dad baa u dhiman karaa hadda arrinta ka hadasho laakiin haddaan xaq u dhinta aslanba waxaan u noolna maxaa waaye so inaan xaqa sheegna maaha haddii la yidhaho ka warkan gurigu ku doonahay walaalo mahdi marka maansadaas basanbaas sidaasay ahayd xanuunka aan hadlahayo hadduu dad fahansan yihi laakiin markaan hadlaayay way rooneed hadda ka daranta way kasii daraysaa maxaa yeele hadda tooriyihii marka hore baloor karoo la isku dilaayay ahayd hadda tooriya guryaha la iskugu soo galaya haddana nii sheegaya hub bay gadan doonaan rag meelo kale joogo oo maleeshiyaad baa la xiriiri doonaa dhallinyaradan lacagaa la gelin doonaa xaafaday qabsan doonaan waxyaabaha lasoo marsan marka ma aha tooridan telefoonku way ka tegi doontaa waxyaabo kale magaalada lagu gadan doonaa se u socotay hadda waxay maraysaa in guryaha isku soo galo kaajakin ay maraysaa wax ka weynna kulli way imaan doontaa marka waana xanuunkaasaan yaan saan oola noqday insha allahu maalin unbuuna la fahmi doonaa waan dhawaaqi intay nafta igu jirto taajir ma ihi maalqabeen ma ihi waxaan cuna laakiin ma weynin waa dhididkaygaan cunaa qandaraasna ma raadinin adigana aad baad u mahadsan tahay hal mar barnaamijna kuma dhammaanayo waa taxana ka dhigana hal mar maansada hal marna noo dul martaa rabi waa maansadii basanbaas bilaahaan ku dhaartee beel uma hadlaayee basanbaas yimaadiyo berrit iyo colaadiyo balaayaan ka digaya ha yeeshee ba'leyd iyo beedkeeda maansada aan kuu bayaanshe beledkaan ku noolnahay innagoo hal beelaa dhowr buula kala degay dhanka bari kuwaa jira bidix uma tallaabaan berberada jidkaa dheer magacyaa u kala baxay boorar baa u kala qoran ballooryaa u kala xihan magacyaa u kala baxay boorar baa u kala qoran ballooryaa u kala xihan balluyi iyo mukaambaa barkuu doona degaya annaguna xuduud baas kala baraa inoo yaal boobi iyo abley iyo baaruud qarxaysaa duur la isku bacshaa markaad baarto arrinkaa ninna baahi awgeed birta uma afaysto dhul ballaarsa mooye badar raadin maaye hadba beesha u yahay ayuu buun u yeershaa bacow baa horboodaa barbaartaa la kiciyaa haweenkaa baroortaa xinjir baa butaacdaa laambeero wiil buu bilaawuhu dilayaa dhowr beri gadaashood barti meydku yaallaan berritaba ku dirirnaa nin baktiye colaadaha beledkaba ma joogo dadku waaba kala baab barbaa hebel u bururaa barbaa hebel u heesaa ma rabo inaan nimankaa magacyahooda sheego ilaa siyaasadda saan ugu kala qaybsanaan ku tilmaamaya rag madaxda ugu sarreeya ka noqda gobolkan kadila aqoon-yahan ma soo baxo PhD nin haysto cilmi buuran sheegto jaamacad ka soo baxay ayuu qabiil ka buuxaa boqorkii wacnaan jiray baryahan wuu dilaalaa caaqilkii bilaahi markay beelo diriraan balaayada baktiin jiray hadda jeebka buuxiyo buskud buu u doodaa dadku waa mid baran iyo mid qabiil u booyo mariid uurka buuxsamay 100 kun oo masaajidi barta aad istaagtaba culimaa ka buuqdaa cilmigoodu barakiyo wuuba beelay dhadhankii waana baahin maayaan bannaan joogsan maayaan bayaan jeedin maayaan fusqi baahayaa jira baarar baa qaxayaa gabdhaheennu waa beec balwad bay u baxayaan badeecay cabbaayaan badeecada waa shiishad aayad uma bandhigayaan ragga qaadka beertaa soo raraaya baabuur barta uu ku furayuu ka helaa balaayiin annaguna bakshiish iyo balka mooska noo reeb
ardaydii balowdo burburigay cunayaan caleen loo babiyeyba bacaha loogu shubaya wakuwa beerka u wadayaal barka kale bal eego suuqa buuxa aragtay bidhaan yaa taqaanaa ehlubeydka maxaa helay yaa biic mushtaraya barka kale bal eego inta boodho fuushiyo inta baati saarani hadday kuu bahoobaan horta beledku waa kee barka kale bal eego bidha waaga subaxii askarigaa ku baadee boqolka kaa gura beeryahan dhammaanin gumaystaha i beeciyo goormaan u baxaya baaqaygu wuxuu yahay ballan qura ma dhiganaa cadli ma baaqaygu wuxuu yahay ballan qura ma dhiganaa cadli ma iska baarnaa xaqa ma u bareernaa webigaa butaacee baallaha ku jiifsaday annagoonan barakicin beeraha ma qodanaa maatidaa bulaantee oonka uu ku baahee booyadaha cabbaayee barkadaha dul taagani biyo ma oga doonaa maansada marka baatuugaygadaa jira aad baan ku salaamay mahadisho aad iyo aad magaaladan horta gaaris kulli horta reer gaarsana magaaladan horta ilaahay horta noo soo hagaajiyo magaaladan maxaa loo codan jiray safest yaa loo codan jiray soomaalina meel walbay joogto magaalada waa magaalo ay ku tashato kan Ethiopia jooga gaarisoo ku tashtaa kan Jubbaland jooga gaarisoo ku tashaa kan gobolada kale jooga gaarisoo ku tashaa gaaris waxaa la inay noqoto hooyiga Soomaaliyeed way taabo shanta gees laakiin wax yar oo macno leh oo la zuulin karo oo aan bil kuma qaadanayso de madaxda arrintan ka tashato waxa la cirib tiri karo maxaa ciyaal waay waxaan waa 17 jir 16 jir madad weyn baa moodi dadka tooriya baa ku qaadaan iyo arrintan baloodyaha oo xal loo helo waa inta magaalada horta ilaahay uga baryeena inuu qof mas'uul oo ka naxay inuu noo keeno magaalada hadda marka jidkeeda marto jidka weyn hadda magaalada bilacdeeda loo baa iska fadhido qashinka tuuran dameeraha iska fadhiyo magaalada horta marka inta isha horta ma qabanayso biyo la'aantii booyadahan ordayna waa artay wabiga galana marna waa kan dhagax hadan tuurada uu ku dhacay anaguna qabiil u hadlaynin oona dadna u ololeynin maxaan ka danqanaynaa magaalada gaaris oo ku dhalanay ku soo barbaarnay kuna kornay magaalada inay noqoto kan goday ka imaaday kan yucub ka imaaday kan shilaabo ka imaaday iyo kan dhinac walba ka imaaday inuu gaaris u imaadaan hooyigii Soomaaliyeed inay noqotay waxaan fariinta u farayaa shacabka Soomaaliyeed especially dhalinyarada shaqa la'aan baahan baa jirta adduunka barihan waa isbedelay farsamo loo guuray mar walbana waan ka hadlaa degree ka soo qaada Mount Kenya maxaa la dhahaa jaamacadda ugu sareysa Mareykanka ka soo qaada jiriyada rabta meel walba farsamo lagu shaqeeyaa inay xirfadaha bartaan TVET-ka ay galaan koosaska farsamada oo dadka kale hadda ay qabanayaan ay qabtaan because markay tahriibaan dhakhtarna ma tahriibo macallinna ma tahriibo qof farsamo lana ma tahriibo dhalinyaro markay tahriibaan waxay qabtaan waa waxay qaban lahayn wabigan ganana maro meesha maraya aan beera ka soo bisano amboogadan iyo meero iyo meelaha nooga imaanayso anaga aan keensan banki waasoo kabtaan oo maray aan beerano aan shaqo abuur suubino dhalinyaradana maxaa ka horeysa maadiyow waxa wax hadda aan ku sheegay dadka kuma fahmi karaan waxa ka horeysa inaan hoos ka bilowno dhalinta aan wacyi gelino hoosta aan ka soo korno laakiin wixii ma sameyn kartid maxaa yeelay maanta arooska masaakiinta loogu yeero jir masaakiin loogu yeero qofka jiiraankiisa oo gaajo u dhamaanay iyo nin madax si sawirka ugu dhaco yuu yeeranaya sawirka si ugu dhaco nin madax u arooska ugu yeero cid jiiraankiisa inay gaajasanta laga yaabo ilaa aan joojino dhaqamada la soo zuuli la soo minguuriyey ee naloo keenay ilaa aan joojino aroosyada aan ka bilowno masaajidda maxaa la dhihi jiray laga hadlo bannaanaha laga hadlo suuqa laga hadlo TikTok waxaa lagu xiran yahay dhalinyarada waxay ku xiran yihiin TikTok nin af xaaraan oo aan nijaasada u tuuri ayaabi iyo maanta oo dhan fiirsanay qolol bay furanayaan dhalinyaradii adi nin madax ah oo ummad idin soo dooratay oo cunug TikTok hooyo iyo waalid ka cay isku sawiraysa dhii oo garab laafiyonay oo soo dhaweynay muxuuna tusan ninka inuu madax ahayn Soomo inuu cunugaas iyo asaga ay isku level yihiin inuu hadda aniga kula hadla lama kulmi kibrata wareysata kama qaadi ha waxa wuxuu ku hadlay shalay aad yaabaysa oo dadkii caayay oo ummadda Ilaahay culimo aan reebin oo waxba aan reebin yu soo dhaw hebel baa ila jooga isku garab sawir dadkii maxaad u bumbuunaysa marka madaxda waxa la rabay hadda muuqaalku idinku dheeray sheekayr baa idinka sheekin jira dhimale sheekayr maxaa jira hadda horta masaajidaha nagu bateen aad iyo hadda buuladan degan 5 masaajid ku taal sax 5 masaajid hadda lacag la aruurinaa gaaris sax 1 bilyan ya masaajid loo aruurinaa Nairobi waa arrin laga hadlo Mandera na telefoon laga soo diraayo 200 oo cid oo meel deganaya biyo cabaan ya baaja walaalo macaan horta ummadda meelan ku tukana maana waaynin masaajidahana waa isku dhadhaweynay
lacag masaajid 1 billion macnaha inaad nin u raaxayso oo weysadiisa aad ka fikirto ha culimada dhaar masaajidka way ka hadashay waan joogay naam waxay sheegeen 500 kun inay ku baxdo biyo kali bishii naam waa wax fiican oo islaamka wax loo baahan yahay naam laakiin waxba ka horeeya naam cabitaanka biyo la cabi lahaa ka horeeya yaa ruux baa oon u dhimanaya ruux baa gaajo u dhimanaya kabad qaali ah oo wadan kale laga soo dhoofiyay inaad u dhigto nin Nairobi joogo barafka ku dhex jiro waxay diinta ka jeceshahay oo aakhiradeena nooga fiican dadkan qaxootiga ku dhamaanay dadkan madheera ku dhamaanay abaaraha hayso bal culimada intay u kaadiyaan in ay dadka badbaadiyaan arrinta waan kula qabaa arrintaas mar walba aan ka danqadaa ina Nairobi masaajid 1 billion loo guro dadna biyo cabaan ila yihiin kulli ilaahayna qalqawna una arkaya dhalinyarada Soomaaliyeed amin dhalinyarada regaris oo lala lagu jira 2 sano ka hartay campaignkii ayaa hadda endorsement cid walba maxay keentay boor dadkan boorarka loo dhidhiibay ee walaalaha macaano qof ina ka shakisan tihiin wax qabadkiisa hanuu dooranina because magaalada qof walba ya qofka hadii hadda maadi maanta ninka aad ku tuumayso ilaahay kugu og yahay bulshada inuu wax u qaban karo una soo qabto wax cad aad ka aragtay hadda bulshada u geyso qabiil baad ku raacdaa lagu dhihi hadda saasa dhibke hadda ki xogaa soo kala abtirsanayeen aan waan dhisay ki iga yara baalkees kor isku imaanayna waan dhisay ki igu hooseeyna waan arkay midka aan u maleeyo inuu bulshada dhigayo ninkii igu nicinayo igu nicso ilaahay ilma xisaabtamahay ninka aan u maleeyo inuu ummadda u damqanayo oo ilaahay igu ogi waan taageersan maamul xumada nin walba saameynaysa kii doortay kii dooranin kulli way saameynaysaa soo maxay iga codsi dhalinyarada Soomaaliyeed oo regaris inay soo doortaan dad magaalo xoo qabanay kulli hadda 2 sano ka hartay ama 2 sano ku dhawaad haddan ololadii dhaantadii waa la bilaabay waan arrin aad loo doqo kuwa hadda ku jiraan wax la socdo waa jawiga dhaqanka wadanka madaxweynihii wadanka u weynaa baa ololihii bilaabay markii dadka maxamed kuwii hadda ku jira wili accountability maxaa qabatay xil biraadinaan ayaga waa nature wadanka ka jirto wax hadda haddaad aamustana aad u baalkin haddaad aamusto midkii bulshada ugu xumaa laga qaban lahaa xil heli maxaad fali markii kiiba xil heli kiiba talini bulshada uu sii dhumi marka intaad ka geysan kartid inaad ka geysato haba laga guuleysto ama guuleyso adi laakiin wax ilaahay kugu ogi inuu nin walba ra'yigiisa ka dhiibto ana way la qumantay سعيد مقالة غارسة كل هذا باتين لو مش كنا أنا مغرب قوليها الوقت كذا عرور يروح شني تبي جير كير لا بتين جير كير ولا شعبناك وبحويس إن حتى قار لنا يروي له أنا مساي ما أكل محا مقالة وحنتها أرتوا خلاص بورو والبن محا لها هاي هدي واحد نيقوا هسكت سفيان بولو خلاص قرنا يا قف كل حرب برو السود داينا قبيلة دبض الجلي المقالة ذا نيوه سنة أنا ودانا مقالة ومقالة دايني لنا يردنا ويلون بدل كرتا بيل أنت كجرت أمن بدر كجرتو استعلاء الدولة أنت كجرتو وحيالها سكول قفك ما أنت ده هو أنت عجن هاي فيتن كوسوبي ونيو بروبوزال كذا محاوي مانيفستو كذا محاوي ما راد كيسة محسوق أنجر راد كيسة محسوق أنجر قفك المحسوق قبته ها والشيء المحكسر عها نعم أنتو كلش نين أفر دربي لحظة كل شيء أو أمي بكل دلنا أما السياسة أنتو دبي كوسو جري حاجة مسكعية ما كل دلنا يراها حل هرقة نعم سياسة أنتو كجري وأكتف كروحا وارس قرنا إلهي القرآن كيسو كشيء أنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم حلوه أفسد لحنا يسدح سنة وحي ككرّيه قفك هوس بوس الله أفرت سنة لو ودي بحلك ماشي ونك أو أكتزين وأفرت إلا لحنا إلا يتضاطم صح سواء كرت ما حديب إنك ولحنا أنتو كمر رأيجيسي أغليجيسي أعرفت إنه استقد كويه باست من وفهم سنين ما أنت هذا عد استقال محلوه حليها أو ريب محلوه كل حلين جري صح وبفهم سنين وحدا ما أما نعيدم إسكاها أو محلي جري أنصار معامل دولة وكسر جرو عن دخن كهوس جرنين وحيابان لمنين بكمت أنا وحدي لا ضد اللي يرى أو حجرا باديو كل شيء جيل سرعة ومدن وأذي وإحنا فانسن مركز الله شيء كست كود دمي صح ها قف كأني مركز الله شيء كستو وأنا عبره قفنا وكود دمي قفنا وكاغش كان وح أسجد دنوع بس قفنا وكاغش كان وح أمد دنوع قفرت أمد كذا قناة عنده نكوها يا قف أمد كذا قناة قفنا وح أمد دنوع عنده هذا كوها قفنا وح أسجد دنتي سكو ولي نكوس الجراد نكوجره وحنا كاغدي وح حقوق ضروري أبو كاغدي بس ليه كرنا قالوا والبعد ما دام قالوا لقى بحيرين إن قالوا والباء كون فرت التاجتين شن سنة كهر وهذا فرت التاجن إن دين عن تقولي كان كون فرت التاجني والأوجي أنت أوتها وراك على أدنى هو جاب ما جونا ليفل كم جونا صدق ليفل وما جونا هرنا ونكوش هذا ونكوش علم كو أنا ما حيجي جراني كان
حتى هادو دتك بابين ربو ما انتظن لباتن كن مو يصدر كراه صدق كن مو يصدر كراه أنا بهم كم شيء جاي ماما رفعتسن مقال أن كدوبي يا مشروع إذا الأسوق يصير ده تاذو كله يقال هذا ماما رفعتسن مقال أن كدوبان إن ماما ده سا يا هل واحد الله قبته يا وحلي لما حفرهم كقدرت ده قال ما يشوف يقبل هذا لكن وحكوا خير بدن بان هلي وأنا هلاو وهلي شاء الله كو لبا قفك وحفيرنا ما أنت وحون لها وأنا بحن قفكن صح قفكن إنه دعي وجهته لكن ما دام ما أنت نيكن ولا باتن كونسينا أما تون كونسينا أما شن كونسينا لا باتن كأكون بتاجرسين أدوكم بتاجرسنا برينا شغلكم الله لبا قبيل أنتوا نيكن واحد نقول لها أنا ما نقولت حتى أنا نقولين أنها نقولين والله وإحنا بابينا لقى يا بنكاس لقى يا نكاس هذا السياسيين ما أنت بدك تقول لنا كم يفيدي كل قبيلك كدرت كم يفيدي كل لنا كل وبنك باهين ركلا كفيدي أو مسكع إلهي والله بين ما مغلسة وقبيل تنسد حد جهلي كنت أنا شجنه ده كان واحد ما يبرن علم الدجود بس واحد ده كان علم الدجود وحي محاضرة كده جيستين وحيرة برايمري يا سكندري لا دقي جراسوبا يا لويس لا كلا دقي علم جيشك نك علم لا ما أنت علم شيء كره أنتوا برشة سود فريستي لا دقي سكر إيشك أنقرنن هي سياسيين تمحيداتك أوكي شكيان ولا ما ديو سياسيين تمحيداتك أوكي شكيان مركب وما نتغنى هي بالأنسك علينا كان أنسك علينا كأنسك علينا إتوضى بدن وحياد أنا عن شغل أنا دورنا صح يعني كهلا نين الله نيك وناك كشقة هرمرك كشقة ما بحلها يبو مسك أمسي مسلم تصدق هو مسنا دبك ما هلا مسك أمسي كي أغلى غبي دخلكم بحلها بريان ميكروفونكم فريني ما نجاب يدخل الجاهل وأنا دقيسني بس ميكروفونكم فري أرتا كاونتيجا بدي هذا هو أنا أذيني يعني أسكب حنين وكجر بالشدة بروبلم كذا قيبان كنا ها معايا المحن قبن محقبا waxbana ma qaban marka inta wax ka qabanayno yaana iska bixin waa ku jirnaa kulliga horta wax dooranayno ku jirnaa wax ololaha ku jirnaa ku jirnaa kullu ku jirnaa meel kasta kaga jirnaa waa ku jirnaa maxaa horta fariinta u dirayaa bulshada Soomaaliyeed Gaarso Jeer Mandera county-ga meesha ka dhimata ama laga dhiso waa assembly yes wiilashan yar yar oo na matala oo assembly geenaysiin bill meegaya public bill ma mariya governor ma impeach gareyn karaan taas aan wax ka dhaw mahdi budget kala fiira ma fiiriyaan sax aan wax ka dhaw meeshaas horta aan dib ugu noqon dad MCS ka aan dooranay aan wax ka dhaw MCS aan fiirin aan wax ka dhaw horta MCA mid qoyska meesha u badan ba soo gala ama u lacag badan ma aha ninka ugu aqli badan ninka ugu cilmi badan iyo ninka u fiican ee dadka hooyooyinka u gargaara ma aha ninka ama lacag marka haysto ama jawiga siyaasadda ninka ugu xoog badan la socdo ama maalinka u wargisha horta soo gala markuu soo galana qabiil buu leeyahay odayaal hadduu qaraar kasta keeno governor wuxuu wiciyay odayash ma qabso wiilka xeer baa la hor dhigi berri baad governor u soo istaagi doontaa dad berri imaan doontaa hadda ninka daa marka waxa aan kuu sheegahay waa jahligii Soomaaliyeed iyo interestedii Soomaaliyeed bas odayaasha lacag loo geen ayaga reebi MCH marka anigu waxaan ku leeyahay bulshada aan meesha laga burburo ma aha baashi kala geli waa bulshada wax bedesho waa bulshada qarribanaya bulshada aan dhisno bulshada hadda harkaysa diinta Soomaaliyeed wadada qashinka laga aroori way soo dhigaan maya musqulihi inta lagu dhisay hatta dugsiyada wadada qarkeeda waa musqulihi jidka lagu dhisay biyaha lagu qabaysto wadada soo galaya qofkii bolod 100 baahan raqo laakiin musqushinta ku dhisay dhanka wadada qashinka carruurta inta ligeeya bambas ligeeya laakiin iga qor laakiin cid kasta muuqaalkaas waxaan rabaa inaad si qaar u qaadato cid kasta oo jaga soo qabatay oo si xun u isticmaashay chiefna ha noqdo ilmihiisa laga arkay wax tayala muu soo saarin hal ruux maanta bulshadu ku dhaxaya male nin kasta oo dhul dad ku dhibe caafimaad fiican maanta ma hayo ama god buu u galay ilmo kasta oo bambaskiisa jidka lagu soo tuuro ummadda ilaahay lagu dhibo wadada la dhigo soo 500 iska bixin kara kareete ama intuu kareete saarta geen karo lagu dhibo waxba ma noqon doona haddaan kuu sheegi xanuun baa ku dhici doona wuxuu noqon doonaa cunug daman cunug sisi ah cunug xumaan iyo balaayo waa inaad ka faa'iido iska dhacdo dhunta ku galo maxay ummadii bal xeerkiisa ku dhigtay fiiri hooyooyinka maxay sameyn jireen magaran xaarka saxarada ilmaha may dhigi jirin iga ii dhaqa gabadheeda ay dhashay inay dhibsatay ka yaabi jirtay ayada dhaqan jirtay hadda gabdhaha Soomaaliyeed hooyooyin Soomaaliyeed waxaan garan shaqaalaha aan u dhiibin xaarka ayaga dhaqdo uf ama cunuga la dhibsadaa jidka midda soo dhigtay ka waran waa jaahilad
qashinka jidka gee ha hay balada han rabaan raystaa jidka wuxuu soo cariirin wadada ilaahay ummadiisu ku dhibay ilaahay ba asagana dhibi xanuun ku ridi dhiikar baa ku dhici xanuunaa ku dhici ha hala yar balaga gelin qabri hadhow waxaas ku marka waxaan natiijooyin baan haynaa haddan kuu sheegaya nin kasta oo madax ahaa haddaa fiicnaad adiga noo sheegin aamus aradaada iyo ganacsigaadii markuu asaga dhintuu raaci hadduu fiicnaa asaga hadduu dad fiican ka tegana wixii baa sii socon ganacsigii iyo wanaagii waan garanaynaa dhalinyaro badan oo aabbahood dhintoo ganacsigooda uu xilka sii aaday wanaagii ninka ka tegay uu beeraan aragnay diin mid ka dhintoo ilmihii diinta sii faafiye ma aragnay laakiin diin baan dadka barayay laakiin ilmihii baa liigu kadeeday kaama yeelayn anaga waxaad samaynaysa adaa garan waxaad samaynaysa adaa garan marka waxaan waa wax guda weyn barnaamijka kuma soo koobeyno waan soo gabagabeyna abwaan aad u mahadsan tahay marka kale maslaxaad sheekadan kulli insaan kuma dhamaanayso kulli kulanti dambe oo xiisa lehna kulli waan sii wada doonaa intaan magaalada Gaarska joogna magaaladan intaan kulli aan ka hadli karno waan ka hadlaynaa kulli dadka qabiil bay u bedeli doonaan waxyaalo badan bay u bedeli doonaan wakaas aad u mahadsan tahay aad u mahadsan tahay intaasaan kusoo gabayna barnaamijka maanta wuxuu ahaa abwaan Cabdirasaaq Baxay كل أريمة بدن وان تابعني حاجة مارتي مرتدى يو مانسديسة قروحه بدن وآدي أطلع دعي حاجة أنا كل مجال ذن أنا أصلا يدتك كلو آدي قدن قدان إنه إلهي قف كنا حق وكانوا ومجال ذن بيان وبيجان كرانا مرة بيان نقصي استعلا ذن نقصي سكول ذا وجيت كان لحظة مرة أنا نوها كاجيو يا إلهي كبرينا تفضل عن دورنا ضد مجال ذا كنا حق إلهي نكعب سنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.